بسم الله الرحمن الرحيم ساكا waxaan joognay halka dhirtaasaan ku jirnay meesha naloogu yimi waa dhirtaa iyo quraacanta weeyna u soo galeen iyo arkale ka soo dhaceen iyo karinta dambe meeshan ka soo kicinay waa halkan anaga halka keenay si waxaan baan isugu celinay halkaana ku rurnay dambe hadii ilaahayna wixii dambana waa raaba qaadana bismillahir rahmaanir rahiim anagu saaka waxaan difaaca kaga jiray madaxa gaalkudhil waan ku sugnayn ilaa dhowr cashaba dabadeed saaka weerarkii iyaga nagu soo qaaday nimanka waa jabnay oo iska celinay dib waxaan ugu ururinay Oodagooye hadeer Goojacdi ku sii dhow yihiin insha Allah waa ka saari doonaa Goojacdana hadii ay joogtaan istaraatiijiga balse waxaan u jeedaa goobaha iyagu joogeen Soomaaliya goobaha iyagu joogeen dareemadoobe iyo aaga geerahaas ka kala busiyay baan ka saar alaabtoodii waxaad waa urursadeen nimankaas waxaan rabnaa inaan xagga u suurno Goojacdaan ku ururno si ay xagga nooga baxaan hadii waan soo wariyaan marwalba difaac baan magaalada wadaxda Oodagooye aan saaka ka wareegnay argagixisada SNM ee ku soo duushay deegaankayga halkan iyaga ku sugnaa saaka kadib markay weerar soo bilaabeen xaqdarraa waa ku jibinay goobta anaga joogna hadda ciidankoodii aftan awas war waa ka haynaa insha Allah taala guusheeda waxaan rajin doonaa galabta inaan dhamaagami ahaanba ka saar doono galan waxa weeyaan warsa weerar cad ayay saaka anaga oo difaac iyaga xidhanay bay nagu soo qaadeen waxa weeyaan على كل حال قوبتي أي كسبناين أيانو أنا وكقبسنا waxa weeyaan marka goobtii anaga ku hadnay anagu weerar mayno laakiin waxa weeyaan magaalada iyo deegaanka in ay uga ogolin haab meesha aadayaan haadin dhowr goobood oo ka qabsanay saaka shirka argagixisada furkooduna waa la hayo anaga baan ugu jiro midkooduna halkaas yaalaan jabbadan baan nimanka soo gaaray dadkana wadada soo khalday oo dhiga lagu soo saaray gaariyaasha dagaal aan garanayn diyaab xumankeeda la ciyaal yarar weeye oo la soo khalday oo uu lagu soo saaray baabuurta habad markii ka dul dhacdana dhagax oranaya guushuna nooma qaybsana guul baanu gaarnay goobaha nu qabsanay oo goobo fara badan haddana waxaan joognaa bacdahoodii marka haddana waxaa ku haray waa qaniimad weeye inta kalena waa daba joognaa kan ma harano بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم maanta oo bishu ay tahay 11 bishii labaad ciidamada xaqodirka ee SSC waxay ku guuleysteen argagixisada SNM inay ka furtaan dhul marabac noqonaya ilaa 8 kilomitir oo afka u shisheeya waxaan joognaa Oodagooye alxamdulillah ilaahay guushi uu naga siiyay waan ka guuleysanay marka waxa weeye xaaladdu waxay ku soo ururaysaa ninkii dhoof ku yimid geeridu dhibaysa waqtigii dhamaay uu dhaqaaqi doona saaka waxa weeye goor markii hore magaalada duqeyn xoog leh u geysteen markii dambana goor 10kii ayay weerar soo qaadeen oo ay sidaheen magaalada aad hareereyseen oo koonfur kala wareegteen dabeedna waxa weeye waa nimanka waa laga guuleystay waana la jabiyay hadda laamigii baan ku dhownahay laamiga afka Oodagooye laamigii dunta madoobeed baan ku dhownahay oo ku ururnay insha Allah waxaan filaynaa aroortina inaanu ka talaabin hadii Ilaahay qadaro ilaa iyo Goojacdi aan wadno SSC gool waxaan u sheegaynaa argagixisada SNM guri ayna lahayn inaynu ku hoyan doonin kuna waari doonin hadii Ilaahay qadaro aan laguna aasi doonin wax kii ku dhintana bahalku baa cunaya cidina aasan mayso halka waxa taagan ciidamadii xaqodirka ahaa ee ku dagaalamayay sharaftooda cirdigooda diintooda iyo deegaankooda goobo badan ayaa saaka lagu jabiyay hadda waxaanu afafka hore ka joognaa Goojacdi waxba nooma jirto insha Allah taala dheydka xiga waxaanu difaaca ka xiran doonaa agagaarka Goojacdi iyagana insha Allah markay weerarka soo qaadaan oo ka guuleysanaa guul shayaale guul ciidamada xaqodirka SSC walba gobolba ku geysina SSC ما شاء الله SSC هدية ما شاء الله